wiilkan yar isagii asxaabtiisa buu kunay badda kasoo helan kadibna ay isku day dhulkan ay ku dhuftaan kadibna wax walba istaagaan weynayaabaan dhamaantooda dadka markay fiiraan waxay arkaan shimbiraha inay istaageen markay banaanka soo baxaan meelaha socdaan waxay arkaan wax walba inay istaageen dadka oo caadi iska noqdeen yacni dhagaxaantii oo kale dhamaantood way taagan yihiin oo kaliya kulaha xitaa dayaxii wuu istaagay oo ma dhaqaaqayo kuntaanina dunida waxay ka bedeshay waxyaabo fara badan ayaguna aad ay u farxayaan saddexdoodaba ayaguna dareemaya noloshooda inay ku jiraan meesha ugu farxada badneed maqaaxida ay soo aadeen wax walba ay arkaan way cunayaan ayaguna ku dheelaya sidoo kalena sameynaya wax allaala waxay doonayaan adigana daawad ha ilaabin muuqaalka ina like noo saarto markaasay soo galaan meeshan ayaguna wax akhrisanaya sidoo kale iska babaashaalayaan haddana mar kale waxay ku caagisaan wax akhriska ay soo baxaan kadibna waxay imaanaan xeebtaan ayaguna ku ciyaaraya biyahan taag qof walba wuxuu iska sameysanayaa wax kadibna iska baashaalaya jasiiradan quruxda badan markaasay mid kale wuxuu bilaabayaa inuu meesha iska saacdo kuwa kale waxay bilaabayaan iska baashaalaan markaasay soo cararaan waliba neegaalka imaanaya wiilkan ay arkaan la yaabaan waxyaabo uu sameynaya sababta mamnuucsan neefna kama imaanayso waxa sidoo galana waa ayaga markaas mid kamid ah ilmeenaya kadibna soo baxaan waxaan imaanaya halkan waliba ayagoo duugaya wiilka markale wadooyinkii dadka maraayo idilna way taagtaagan yihiin weyn la yaabay midaas markaani afartooda bay weynaadeen mid kale wuxuu bilaabay inuu magaalka iska gal kadibna iska baashaalo sababta waxay sameeyeen ma yaqaan kan qaab ay ku soo celiyaan ma yaqaanaan markaas waxay rabeen halkan yimaadaan kadibna ay soo celiyaan oo kunta dadka sidii caadi u noqdaan si ay kuntaas u helaana waqtigana dib ugu celiyaan wax waliba ay isku dayeen inay sameeyaan balse mid kamid ah wuxuu arkaa dayaxnu isbedel kadibna soo caray wuxuu imaanay qofkan wuxuu ku dhahay isbedel rabay kaal ila fiiri kadibna soo caray ugu dambeeyna ninkan wuxuu arkay baashaan lagu dawaasho kadibna uu yaabay kadibna kor soo qaadanaya markaas ayuu bilaabay hamarno isku tuuro biyaha waliba isagoo rabaa inuu ku dhex dawaasho si uu soo helo ukunta balse dhinaca kale xeebta ayuu ka soo dhacaya waliba isagoo yaabaya markaas ayuu isdhahay halkan maxaa ku keenay maxaad halkan ka sameynaysaa haddana wuxuu dareemay halkan wax ka qaldan sababtoo wuxuu arkay xayawaan buubuuba ay dad soconaya isagoo arkay markay ukunta gacanta ku haysteen sidoo kale uu soo baxay wuxuu imaanaya iskuulkiisa macallimadiisa ma fahmayso isaga halkaas uu istaagay waliba isagoo ilmeenaya uu soo baxay wuxuu imaanaya asxaabtiisa ku fasalka ahaayeen ayagana ay ka cabsanayaan sidoo kale ka cararaan halkaas uu ku ilmeenaya wiilka miskiinka ah